daawada qaybtii labaad runtii arintii doorashooyinka waxaan marnay barnaamijka hore ayaynu ku faalheynay isla markaana aynu dabcan aynu ku qadarignay arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaa jira halgan aad u weyn markii aanu sameynay warbixino dhinaca markaas baaritaanada oo qaarkood warbaahinta aan si toos ah madaxdu aysan ula wadaagaynin oo runtii aynu anaguna ku madax banaan aynu sameynay waxaan ogaanay in arinta halganka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ku jirto uu yahay mid adag oo taf ah waxaana tafgareeyay oo ka dhigay mid adag hardanka ay ugu horeyso arinta badda ee damaca dalka Kenya ay kamid tahay Kenya waxa ay samaysay waxay dispatch gareysay dulmaansiinteedii ugu badnaa Kenya waxay ku jirtaa dagaal warbaahineed waxay ku jirtay mid dulmaansideed waxa kale jira dalal kale arrin la ku jira uu kamid yahay Imaaraadka Carabta uu kamid yahay dalka la yiraahdo oo runtii ayaguna aan fadhiisan oo dalal kale kamid yihiin dhamaantood waxa ay halgan sare iyo mid hoosaba u galeen in siyaasadda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya la wiiqo in dawladda Soomaaliya la jalaafeeyo in dawladda Soomaaliya laga dhigo in ay yes noqoto man ama yes maartay sheegay noqoto dawlad mar walba ha tiraahdo oo wax walba yeesha Kenya waxaad ogtiin hadeerto in ay suxuldub ugu jirto inay ugu jirto in ay golaha amaanka qaramada midoobay soo gasho xubinta aan joogtada ahayn ay hesho arintaas hadii aad ogtihiin dadaalka ay dawladda federaalka ay u gashay waxa yaalaha muhiimkan waxa weeye hadii aynaan waxa qarannimada loo qabto aynaan xusin oo aynaan sheegin waxaynu noqonnaa muxaqirin haduu qofku yaani kibir bayna arrintaas soo galayso nabigu markuu kibirka uu sifeenayay wax xaq oo la diiday dadka la xaqro yaani dawladdu waxyaalo ay u baahan tahay inay saxdo aad wax uga qabato oo ay kamid tahay arrimaha amniga arrimaha Muqdisho iyo in la xasliyo arrimaha yaani ciidanka iyo fariisintiisa arrimaha Soomaalida in gacan qabow iyo walaalow loo taago in cadaalad la suubiyo waxa soo dhan waa arrimo kale laakiin arrinta waxyaalaha ay dawladdu qabato wax la xaqiri karo ma arrinta arrimaha dibadda oo kale madaxweynaha 18 ballamood buu galay 18 kulan buu galay New York markaan joognay runtii oo dhamaantood badankoodu waxay xuseeyeen in Soomaaliya arrimaha dibadda laga dhiso in dalalka soo galaya Estonia dalka leeyahay maxaa ka dhaxeeya Soomaaliya golaha amaanka qaramada midoobay soo galaysa in hadii Kenya lacag ay ku soo baxdo aynu si afayfarno inuu dal arintaas aan isku haynaa meesha soo galay war hal ogaado dalal kale in la shukaamiyo dalal kale in wax loo sheego in adduunku wax kala bedesho yaani waxay kamid tahay arintaas wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu sheegay inuu san fariisan inta badan maadaama arrimo waaweyn oo culays ay Soomaaliya ay saarantay arrimaha culayska taa waxa sii dheer yaani mar walba dalka wasaaradda arrimaha dibadda quwadiisu waxa ay tahay waa muraayadana waxa kaliya laga dhaxarkaa waxa tahay hadii Soomaaliya muraayada saa ugu qabato maxaa ku soo baxay 7 maamul goboleed kala qaybsanaan qabyaalad baa ku soo baxay marka muraayada saa loo saaro bulshada in yar baa nabad qabta intii yarna awood ma hayaan oo gacanta wax ugu ma jirto marka taa weeyta wasiirku muraayada wasiirka marka uu tago Morocco iyo marka uu tago New Zealand iyo marka uu tago Switzerland iyo marka uu tago American iyo North America marka uu tago Far East Japan marka uu tago muraayada baa lagu eegay xagga ka timid Soomaaliya hadaad ku dhufato Soomaaliya hadaad ku qorto Google hadaad ku qorto bal kelmadda magaca kaliya Soomaaliya hadaad ku qorto waxa ku soo baxaya dadka ajnabiga ah ay galiyeen bal adigu indhaha ku arag waxa ku soo baxaya Soomaaliya waa meel aan nabadgelyo ahayn burcadbadeed ba ka buuxda waa meel qabiil isku haystaan kooxaha isku haystaan waxa ku soo baxaya hadda Soomaaliya joogtana hadda ka tag oo carar sida ugu dhaqsaha badan adoo raadsanaya meel nabadgelyo ah wado maartay passage nabadgelyo adoo raadsanaya ka carar hadii aadan joogin ha isku tagin baa ku qoran yaani warbaahin been u baahanahay arintaas la dagaalanto waxa loo baahan yahay dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyada maal qabeenka in ay hagaajiyaan sawirka Soomaaliya ay ugu talagalaan maalgelin ay ugu talagalaan rag baa qoray waxa dad baa waxa ka shaqaystay yaani lagu oranayo nin baa oranaya maxay tahay anigu waxaan ka yimid Soomaaliland maxay ka khuseeya laakiin Soomaaliya markaad ku qorto meesha waxa ku soo baxaya Soomaaliya oo dhan safe ma waxa ku soo baxaya khariidadii oo number 7kii ah Soomaaliland oo gaar loo gooyay kuma soo baxayso nin baa koonaya Puntland baan ka yimid waa nabada garow aan ka yimid garow gaar kuma soo baxayso koonayso garow oh you good garow aad ka timid ma ku jirto laakiin waxa ku qorada entire maartay isha Kenjari dalkii oo dhan baa ku qoran oo dalkii oo dhan baasas samcada lagu xumay article kasta oo Soomaaliya laga qoro waxa lagu xusaya hadda qof ku tiraado Soomaaliyan ka yimid wuxuu kugu nisbeenayaa qof dhalinyaro ah haduu yahay oo dadka dhalinyarada ah soddonka ka hooseeyana wuxuu qoraya waan aqaana waxaan ku arkay filimkii la oran jiray Captain Philip ayaan ka arkay waa waxyaalaha samcadeena xumeeyay buu filimkaas ka mid ahaa samcadeena baabiyay buu ka mid ahaa burcadbadeedka wadankii Soomaha dadka lagu qala jiray Soomaha buu qoran waa dadka daayarta qof weyn hada aragto cadaana ama dalka shay ka yimid wuxuu qoraya wadankii jabhadaha Soomaha
jabaduhu rideen warlords ku ka dagaalami jireen dhiiga lagu falxala jiray Soomaa isla jiray mid kale oo wax fahansan hadaa aragtana wuxuu qoray wadanka kala qaybsan Soomaa intaas oo maartay ka maamul goboleedo iyo intaas oo doonaya gooyitaan iyo kuwaas oo maartay doonaya iyo qabiilka u kala haysta Soomaa qaar wuxuu qoranayaan central government ma laha Soomaa dawladda xaw ma laha Soomaa bay ku oranayaan yani waa inaad halka waxay ka qaadan sadad meel u socotay qaar baa xataa diyaarad iga tagtay dadka qaar kood baa diyaarad kaaga tagaysa saad ula murbis marka garoomada joogto aad ula murbis waxaan ku misgareeyay falayto yani laakiin uma baahana qof in loola hadlo waxay u baahan tahay warbaahin strong maqaalo ingiriisi ah kuwa carabi ah kuwa Soomaali ah laakiin marka hore maxaa la charity begins at home marka hore inagu weynaan horta isdhisnaa marka hore inaga horta weyn inagu horta inagu qualified noqono marka inagu qualified noqonayno adduunka u gudbi karnaa markaas aynu bixi karnaa muuqaalo iyo maartay barnaamijyo fiican tusaale ahaan dadka muuqaaladooda xusida mudan waxa kamid gabadhii loo jeedo hodan naaleey inspirationka gabadha soo ismay jirtay wuxuu ahaa muuqaalo waxay keen jirtay talentia oo dhinaca wanaagsan wax laga yeegi jiray laakiin ayaan daradu maxay noqotay dhinacii ay daboolasay ayadii ku dhimatay dhinacii ayadu ay lahayd macnaha waxba kama jiraan ba ayadu ku dhimatay kadibna disaster reality ba leeyahay wargeysyada qaarkood waxay soo qoreen runtii ay doonaysay inay daboosho ayadu ku dhacday bilahaayeen Soomaaliya oo ka samaysay yani baleen ayaan darada inta laga fiiri nin macnaha kabtiisa turiso kafantaada tolay marka waxaanu u baahanahay daawadeysha qiimaha leh arinta wasaaradda arrimaha dibadda markay noqoto in aynu aad iyo aad aware u nahaano dadkii Soomaaliyeed wax qori jiray inay soo noqdaan dhalinyaradii dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay kuwa kale waxaan kala rabaa inaan halkan aan iyadana wax ka iraahdo arrimaha dhinaca social media si xun baan u isticmaalnaa arrimaha hadda arinta gudaha ee dhawaan ka dhacday hadaan taabto ee ugu dambeeyay xisbiyadan isku tagay ee madaxdeena qarankan soo leeyay ay sameysteen oo runtii madaxdeeni ay u dhaqmeen qaarkood si aan sidii laga filayay ahayn madaxweynayaasheena bilkul ixtiraam waa ku shalayna xukumayay kan maanta inay xukumayay waa isku mid macnaheeduna waxa loo baahan waxa weeye waxana wax meeqaamka dalka waxana waxa weeye waxaan inagu isku haysano ee inagu isku ligliganay waxa iskaga keen khaldamay masiibadu meesha inaga haysto waxa weeye iyo wixii danta guud ah madaxweynaha khudbadii uu ka jeediyay qaramada midoobay dan guud baa isagu isku difaacin hal mar magaca farmaajo kuma jirin hal mar magaca khayra kuma jirin hal mar magaca baarlamaanka gudoomiyihiisa labada gudoomiye baarlamaan kuma jirin waxa ay ku jirtay yani waxa national level yani adduunka iyo sawir guud buu naga bixinay taageero mudan arinta safaaradda anaa furay lacagteedan ka bixiyay madaxweynuhu hal mar ma oran lacagtii aan ururinay ee wax kale loo isticmaali lahaa ee dadka Soomaaliyeed lahaayeen baan ku bixinay baa leeyahay fiiri yani waxyaalahaas kale safaaradaas hadii uu Brito 2 sano wax ka dhiman baa hore farmaajo haduu tago ma waxaan oranaa guriga asaga galaya ma galayo hadaynu inteena oo dhan wada dhimanno oo 1 sanadood dhammaan Soomaaliya sii joogto in rajayna ka sii fiicnaato waanti Soomaaliya ay leedahay bay noqonaysaa wixii saas oo kale waxay naga khaldan marka wixii guud iyo wixii gaar ahaaneed arinta Kenya macnaha warbaahinta Kenya warbixin soo qoraysay warbaahinta Soomaaliya oo kuwa Soomaalida ay kuwa af Soomaaliya ku hadla kale warbaahintu waa labadaas warbaahinta qaar baa af Soomaaliya ku hadla way warbaahinta aan Soomaalidu lahayn afkeena ku hadla anu dabcan waxaan u aqaana warbaahin afka ku hadasha waana siiyaa runtii credit yani waxaan ku siiyaa waxay tabinayaan oo dhan inaysan wax wada Soomaali lahayn oo mararka qaarkood waan ku cuurdaaraa oo way fitriyaashooda ugu dameysta am final word iskale de Soomaali maaha oo dabcan ayagu waxaan Soomaali ka dhanay qoraan anugu kuma naxo dadka qaar baa ku naxo warbaahintaas aad u maaga laakiin maxaad ugu naxaysaa maadaale warbaahinta dad baa maal galiyay wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa maal gashada marka wiilasha Soomaalida ka shaqeeya in dhibaato looba geysto anu ma baarkaba laanu dabcan wax qoran oo loogu talagalay in loo dhigo laakiin warbaahinta gaarka loo leeyahay ee hurfadhi media kale ka mid tahay inay waxyaalo dalka ka dhanka farmaajo wixii ka dhan waa caadi tusaale ahaan aan ahayn personal attack aan ahayn shakhsi weerar aan ahayn in laga sameeyo madaxda aan ahayn laakiin waxa dalka ka dhanka bay madaxdeena sameeyaysaa mucaaradkii waxaan u kala qorshaysnayn wixii danta guud ahaa iyo wixii danta gaar ahaaneed ahaa waxaan u kala qorshaysnayn waxyaalihii siyaasadda laga mid dhalin lahaa ee siyaasadda isku laga eegalayo waxa kale waxaan u kala saarnayn qaarkood iyagoo dhan ma waxaan u kala saarnayn waxyaalaha Soomaalida kala qaybinaya si kala dilay ninka xildhibaanka ee doonaya in uu yani fursad ka dhigto waxyaalo Soomaalida danqaya qaybahan Soomaalida danqaya kuwa kalena ka xanaajinaya mas'uul dhaweyn Soomaaliyeed wada mise kala fogeyn Soomaaliyeed booda ma wado yani macnaha qof Soomaali oo maanta dambilaawa ma jiro
runtii arinta ugu dambaysa ee daawasha qiimaha leh aynu isla doonno waxa weeye dadka social media isticmaala ee Soomaaliyada ee dhalinyarada ee ayagu wadaniinta isku arka hadda wadaniinta waxa laga rabaa horta marka siyaasiyiintu isku dhacaan hala kala safan waxa isku daydaa in aad neutral aad qaadato dhexdhexaad iska dhigto oo aad waxyaalo wanaagsan ku baaqdo hadii laakiin si aad mid sawirkiisa xumayso aad mid kale sawirkiisa caydo aad mid kale ku dhufato mid kale aad ka dhafato aad samayso waxaad un escalationkii iyo wad escalate garaysay oo aad ka sii dartay un arintii un baad sii faafisay horisay wad sii horisay un laakiin waxyaalo haddaad xitaa doonayso in aad hoga tusaalayso fikirka siyaasigaas inuu khaldan yahay ha ahaado mucaarad ama muxaafid si nadiifa oo aad xadgudub samayso de maxamed ummadii umaad sii kala dhufatay waxa ma sameeyeen waxaan u baahanay ugu dambeyntii daawasha qiimaha leh inaynu hal talo oo muhiim ah in dawladda iyo dadka xukunka haya aynu u dirno arintii salahan hawadii la xiray ee laga xiray magaalada Kismaayo kale toor sharci darre in hawo deegaan Soomaaliyeed laga xiro oo laga mamnuuco sharci darre dawladda qaarkeedna way qirteen arintaas way ka noqdeen in shacabka yaani way waxa la eegaa xukuumadda dadka maamulka Jubbaland haysta marka waa dad la tiri karo maanta 1 iyo 2 iyo 3 la dhihi karo ee arintu saameynayso laakiin dadka kale ay saameynayso ee Kismaayo gobolada kale uga yimaad jiray Jubbaland area ku dhow ama gobolada kale deriska la ama magaalada Kismaayo ku nool ma tiri karno ee u baahan adeega diyaaradda iyo kuwa kale ka imaanaya dalka la xiriira kuwa xamarka imaanaya kuwa ka imaanaya Hargeysa kuwa garow ka imaanaya kuwa haday doona jigjiga ka imaanaya kuwa haday doona Djibouti ka imaanaya lama tiri karo marka arrimahaas oo kale dawladdu in ay ka fiirsato isla markaana go'aamada noocyada qaarkood markay qaadanayso inay samayso dawladda waxa kale oo la gudboon oo aad iyo aad la gudboon in Iron Fist Soomaali maanta Iron Fist yani gacan bira Soomaali maanta waxba kuma qabanayso dawladdu inay waxyaalaha ay doonayso in aan la sameeynin qaanuun dawliga inay ka soo saarto wixii qaanuunka dawliga jabiya dabcan la xisaabtan waa sax laakiin ayadoon qaanuun dawli ah oo mamnuucay in Kismaayo la aado uusan jirin in qof lagu dhigo ama qof siyaasi lagu dhigo ama ku kale lagu dhigo taas waxay inagu celinaysaa in aynu yaani dadka qaarkood ay la ku kiciso xun oo ah waxaynu ku burburnay waxaynu qarannimadeena ku weynay waxaynu kala adkaa diidnay waxaynu halkan uga gudbinay Soomaalidu way fiicnaan lahayd Soomaalidu inay kala adkaato arinta dhowr jeer baan ku celceliyay waayo adduunkan badankiisa dagaal baa ka dhacay Mareykanka oo kaabayaashiisa dhaqaalaha sida uu dhisan yahay wadooyinkiisa maalka dhex yaala maaliyadda dawladnimada iyo kala damaynta dhex taal way soo kala adkaadeen ayaga dhexdooda way isdileen dadkii wadanka lahaa way dileen ayaga laftooda waa la soo dilay kuwii halkan yimid oo laga soo adkaaday hayaga baa dib isku sii dilay way kala adkaadeen dad kadina waa la sax xukuma Britain dalka leeyahay waa la kala adkaaday Europe oo dhan baa kala adkaatay Carabtu way kala adkaatay Afrikaanka qaarkood waa kala adkaadeen Shiine iyo Asia way kala adkaatay inagu laakiin waa kala adkaadid hadda ogow dagaalka ugu dheerna waa dagaalka ugu dheeray Soomaaliya waayo maxaa loo kala adkaa waayay waa laba arrimood waxa ay isku haynay oo waxba ka jirin waayo dadku hadaysan mabaadi diineedna isku haynin mid yaani deegaana isku hayno deegaanku inaga waa badanba Soomaaliya inaga waa badanba dad baynu u laanhayba aan la isku haynin ideologiyad kale oo la isku hayaan aysan jirin ay ahayd yaani qabiil hoose waayo Soomaalidu waxba isku wada yihiin si loo kala adkaanaya mid maxay tahay qabiilka la diraya ba mid kale qabiilka la diraya badbaadinaya waayo abtibuuya walaashi baa dhashay in abtibuuya isagay dhaleen gabadh buu ka qabaa si loo kala adkaanaya marka anaga lama kala adkaa karo Soomaali ma kala adkaa karto waayo Soomaali marka hore qoys ahayd marka hore Soomaali waa isku family kala adkaada ma jiro laakiin family kala dudaa waa jira waa la kala duday laakiin lama kala adkaanin waynu kala dudnay waynu isku soo noqonanaa aynu soo wada fariisano waa kala adkaa diidnay mana kala adkaa doono 100 sano oo kala deyn bila dawlad ahaano ma kala adkaa doono waayo qabiil la mari kara oo qabiil kale mari karaan ma jiro wuxuu soo mari karin qabiilkaasi hadduu xitaa ka awood badnaa lahaa maba ogole waa wada familkiisa wada qoyskiisa wada walaaladii waa wada in abtigii walaashi baa dhashay mid bay gabadh ka qaban ku kala badbaadinaya odayga beesha haysta baa ogolaan ba hawsha oo le aniga gabadh ka qaba gabadhayda dhashay tan baa dhashay marka waayo wixii baa isku family diin isku ma hayno inkastoo bareedo wata inagu soo ururo diimeed ayagu de afkaar siyaasadeed oo shisheeyay isku dilaan hadda aragto dhowr jeer arintaas waan ka hadlay urur diin xambaarsan oo Soomaaliya ka dhex dagaalamay hadda aragto afkaar shisheeyay way waayo Soomaalidu meel ay gaalo ku ahayd lama hayaba Soomaalidu waligeedii Allaheed muslimiin bay haayeen maxay ilaahay diimihii hore haday intay Soomaali jirtay muslimiin bay haayeen meel ay Soomaalidu dhagaxna ku caabuday ama ay dhagax caabud iyo budiste ama ay ku ahaayeen khuraafiyiin diin aan haysano bilaa diin ma jirin kolka waxaan u baahanahay inaynu is-iimaansano waynu surrannahay Soomaaliya dawladana waxa looga baahan yahay inay mas'uuliyad ku hogaamiso dalka isla markaana dawladdu in ay waxyaalaha ay xaq u leedahay ay liglig ka qabsato waxyaalaha kalena ay dirciso waxyaalaha kale inay dabciso talooyinka hoose ee seebaa doorasho loo qabtaa
yes dowlad goboleedada waa looga baahan yahay talooyin oo deegaankooda inay doorasho ka dhacdaan raba laakiin markay noqoto final say ama ereyga ugu dambeeyo ayaga iskale waa dowladdu waa keenta jadwal baarlamaanka waa inuu ansixiyaa waxaa la yaab leh oo runtii aad iyo aad la yaab u leh maamul goboleedada soo dirsaday baarlamaanka beelaha ku soo dirsaday isla markaana aqalka sanadka soo dirsaday madaxweynayaashooda soo magacaawdeen ee haddana waxay soo gooyeen aysan fulaynin bal maxay xageeno seebeen waalan laakiin aan hal arrin isku soo gabagabeeyay kullu finna cinda geel buuri mid carab baa laga sheegay waa geel buuri fidnado dhan waa geel buuri intuu arkay Soomaali geel malaha isku haysata fidnado dhan waa dastuur ku sheegan oo islam iska hor imaanay yani waa densi yani waa foodis kula dhex jira wax foodis kula dhex jira kaasa u baahan marka in la kala saaro awoodii uu kala cadeeyo waxyaalihi oo dhan uu kala saafo intaas aan ku joojinayaa dabadasha qiimaha leh faafin wa fiican iyo falanqeyn xoogan oo nadiifa ayaa la rabaa haddaad xitaa afkaarta qaar ku diidan tahay adoo caytamin ayaad saaxiibka la doodi kartaa waayo platformka Horfadhi Media lagama ogola wax ay lagama ogola wax yani aflagaadeena wax Soomaalida kala gaxanayana lagama ogola cid Soomaaliya in lagu xadgudbana lama ogola cid kasto Soomaali aan in wax laga dhaho dad ahaan dadka maamulka haya madaxweynayaasha iyo dawladaha waa caadi laakiin aflagaado shakhsi weerar sida Facebookada ka socoto kale platformkan ma aha waana ka tirtirnaa anagu waan tirtirnaa dhamaan waxyaalaha cayda ama waxyaalaha qabyaalada cid lagu soo hadal qaadi karaa ma jirto aynu si waxaan rabnaa inaynu bulsho aqli badan ee Horfadhi Media ka soo dhaxbaxdo bulsho yani nadiif oo adduunka la socoto sophisticated gareeya siyaasadda Soomaaliya oo ayagu runtii noqda dadka loo soo hiri lahaa oo dad bisil oo nadiif ay noqdaan taa macnaheedu ma aha inaan ku leenahay cid ha taageeri cid doonta taageeraysa laakiin cid doonta ma caayil kartid cid doonto ma xumay kartid cid doonto amaan cid doonto jecelo cid doonto u ducee laakiin cid doonto ma caayil kartid xitaa kaad nacabtahay ma caayil kartid laakiin siyaasad ahaan fikirkiisa waa dhaliili kartaa sida uma arko sidaas aan u arkaa sidaas sax maaha sax amaan Allah